waxaana soo gaartay arrin oon aad uga magiciisi naxnay oo ceeb weyn soo jiidaysa ay ku kaceen dadka deegaanka degmada Laascaanood oo ay soo tarxiileen boqolaal qof oo maata iyo caruur iyo haween iyo odayaal isugu jira iyo ganacsato in ayagoo suuqooda joogo oo aan warna wax gelin la siinin la soo xaraashay haddana sidii oo xoolihii oo kale gawaarida xamuulka lagu soo raray laguna soo daadshay meelaha martay xuduudaha ay la leedahay dowlad goboleedka Puntland waa arrin aad iyo aad u foolxun mana filayo inay xukuumadda Somaliland ay lug ku leedahay waxaan u filayaa inay tahay arrin ay ku kaceen dad kooban oo aan xilkas ahayn oo deegaankaasi ka tirsan ay ku kaceen arrintan waa arrin ceeb iyo nidaam darro iyo sharaf xumo u soo jiidaysa shacbiga wanaagsan ee Somaliland oo gobka ah arrintan ma aha dad gobonimo oo dad gob ah waxay ku dhaqmaan ma aha waa arrin oo aan waafaqsaneen diinta islaamka aan waafaqsaneen insaaniyadda aan waafaqsaneen dimuqraadiyadda aan waafaqsaneen Soomaalinimada kulli ka soo horjeeda bal dad ilaahay amarkiisa oo kugu dhagor ah kugu dhaqan ah kugu dhiig ah oo kula degan oo meesha shaqaysta wax dhibaato aan ku geysanin in aad ciqaab wadareed ama la yiraahdo collective punishment lagu sameeyo waa arrin oo barbaarig ah laga soo gudbay qarniyaal hore oo hadda marta oo adduunka laga mamnuucay annaku ma lihin qof oo mujrim ah in marta la badbaadiyo mujrimku waa la qabanaa xukunka la marsinaa waa magiciisi waa la iska qabanaa amni darada qofka ku magiciisi halis ku ah laakiin in la soo arooriyo dad maata ah oo sidan loola dhaqmo arrintaasi ma aha arrin oo wanaagsan maamus xumo iyo sharaf xumo u soo jiidaysa shacbiga wanaagsan ee Somaliland saa daraadeed waxaan codsi ah u dirayaa guddoonka guurtida iyo xubnaha guurtida iyo guddoonka golaha wakiilada iyo xubnaha golaha wakiilada ee shacbiga Somaliland in arrintani ay fiiro dheer u yeelaan si qoto dheer uga hadlaan cid alla cidii ka mas'uulana ay mariyaan mudankiisa waayo arrinta tani ma aha arrin marta oo aan ku naqaano shacbiga Somaliland arrintan ma aha arrin dhaqan marta aan xukuumadda ka filnayn xukuumadda Somaliland cid alla cidii ka dambaysa waxaan codsanaynaa in marta ay ka hadlaan ama marta ay mudankooda ay mariyaan culamaa diinka iyo ururada xuquuqul insaanka ka hadlaya ee Somaliland iyo dhammaan bulshada rayidka ah in arrinta tani aygan si toos ah uga hadlaan ayaan ka codsanaynaa iyo dhammaan marta ururada caalamiga ahna ay marta ay ka hadlaan oo arrintani ay marta laga daweeyo ma aha kaliya xukuumadda inaan ka filanayno inay ka hadasho ama ay fiiso waxaan ka filanayno waxa weeyaan in dad alla dadkii ka dambeeyay arrintani ay marta la xisaabtamaan xisaabtan la'aan dowladnimo ma jirayso halala xisaabtamo han loo soo sheego waxay yihiin dadkan laga maqdhawo dadkii oo dhaqan yani meeshii ay deganaayeen laga soo tarxiilay hantidooda laga soo tarxiilay oo hantidooda laga soo reebay sidii marta dibaddaasi lagu soo tuuray ma aha mid aan ka filanayno dad oo nagu dhaqan ah nagu dhiig ah nagu dhaqan oo nagu diin ah in marta ay ku kacaan ma filnayn saa daraadeed magiciisi arrintii ahayd koonfur galbeed maanta amni darra haysato laakiin waa laga baxayaa waxaa reer koonfur galbeed waxay ku maahmaahaan abaar bahaase eeba daran yani abaar waa laga baxayaa ceeb baa daran arrintan waa arrin ceeb ah arrin aan insaaniyadda ogoleen arrin aan islaamnimada ogoleen arrin aan soomaalinimada ogoleen dad sadaqmayaan marta oo aan arrintani oo ay marta ka xishoodaan inay tahay min fadlakum wa ihsaanakum arrintan si degdeg ah loo daba qabto haddii oo marta arrintani oo marta aan si degdeg ah wax loo qabanin waxay keenaysaa dhibaato aad u badan koonfur galbeed weligeeda way soo dhaweyn jirtay Soomaaliya ayadoon cidna u fiirinin markay ayada deganeed taariikhdeeda waa taqaanaan kulligiina ma aha dad marta waa dad oo Soomaalinimada jecel dad soo dhaweyn jecel islaamnimada jecel ayaa ay yihiin marka collective punishment kan ama waxyaabahan ciqaab wadareedka ah islaamnimada ma ogola walaa taziru waziratun wizra ukhra ayaa Allah subhanahu wa ta'ala ku tagin yani ninna dambigiisa nin kale ma qaadayo qofkii oo loo qabto qofkaas ayaa dambiga iska leh marka saa daraadeed mar kale waxaan codsanayaa dhammaan shacbiga Somaliland in arrintani ay tallaabo adag ka qaadaan
lana xisaabtamaan cid alle ciddii ka dambeysay dadkana meeshooda lagu celiyo ilaa iyo marta qofkii aan dambi lahayn meesha lagu celiyo wixii dambina la qabto arrintan marta oo fikraddan hore la soo dhaafay oo propagandada ahayd ama ujeedada gaarka ah laga lahaa oo nin al ninkii koonfur galbeed ka yimaada ama afmaay ku hadlaya waa shabaab la leeyahay war dadka waxaa idin meesha idin keenay waxa weeyaan amni darro ka haysato deegaankooda haddii kale idinma imaadeen marka haddii amarta ay caalamkii hadda maanta uu marayo in qof oo diinta aan ahayn oo magaciisa dalalkaas adduunka weynaha marka aad tagtaan muddo gaaban ka bacdi in amni ninkii marta badbaado la siiyo oo amnigiisa la sugo oo weliba la taakuleeyo waxbarasho loo ogol yahay oo loo ogol yahay ilaa xad inuu marta golahooda xataa golahooda taliska ay ka qayb ka mid noqdaan ayay ku dhaqmaan adduunyadii kale marka sideebay annaka nooga suurto gashaa annakoo Soomaali wada ah sheeganayno oo isku dhiig ah oo isku dhaqan ah oo isku dhaqan ah isku dhaqan ah inaan sidaa isu garno waa ceeb waa sharaf daro waa arrin xumaan u soo jiidayso dhaqan wanaag reer Somaliland fadlan arrintan xukuumadda waxaan ka codsanaynaa iyo golayaashooda wakiilada in arrintan ay si degdeg ah uga hadlaan si degdeg ah wax uga qabtaan cid alle ciddii ka dambeysay loo xisaabtamo arrimahan oo kale waxaa ka dayasho mudan oo aan jeclahay inaan halkan ugu amaani hambali ugu jeediyo dowladda Puntland sida wanaagsan ay markii dambe ay u barteen oo haddana u hagaajiyeen la dhaqanka dadka koonfur galbeed oo xaggooda amni ahaan u tagay ay ugu dhaqan yihiin ugu ganacsadaan ula nool yihiin ilaa haddana maantana ay u ogolaadeen xataa xaq u taswiid inay yani xaq u leeyihiin inay codaynta ka qayb galaan ay ogolaadeen waa arrin lagu ku dayasho mudan ayaga iyo martaa dowlad goboleedka Galmudugba